magaalada Garowe ergada soo xili doonta mid kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka banaan ama kursigiisii uu banaan yahay ayaa Garowe lagu qabtay tababar lagu fahansiinayo habka ugu haboon ee loo soo xuli karo xildhibaan. Waxa tababarkaasi ka qayb galay xubno ka socday doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya. Wariyaheena Bahja Cabdullaahi Maxamed ayaa qodobkan eegaysa. xarunta baarlamaanka Puntland ayaa waxaa lagu qabtay tababar ujeedadiisu ahayd sidii mid kamid ah kuraasta golaha shacabka Soomaaliya oo banaan ay doorashadiisu si haboon uga dhici lahayd Garowe. waxaana tababarkan qaatay ergadii codkooda uu ku soo bixi lahaa xildhibaan kala soo dooranayo. sida ay sheegtay gudoomiyaha dib u eegista doorashooyinka Soomaaliya Marwo Xalimo Ismaaciil Xalimo Yaray waxa lagu wadaa in doorashadaasi ay dhacdo maalinka Axad ah. madaxa banaan ee qaranka ay taariikh u tahay in ay si aad u sii dhow marka aad u sii leeyahay in aadna leeyahay markasta waa jiraya waxyaabo yar oo ku geliya laakiin hadda wanaag u yahay inaan lagu difin karo oo sani karo markasta maalintaas weyn oo maanta aan ka joogno baarlamaanka ee Puntland aad ugu faraxsanahay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dowladda goboleedka Puntland oo runtii si qurux badan oo wanaag ku jirto inuu ku soo dhaweeyey magaalada Garowe ee magaalada taas waxay muujinaysaa sida runtii loo fulinayo raaliga isleeyahay shuruucda dalka sida ay u dhigan yihiin in loo fuliyo oo loo wada qaato. waxaan rajaynayaa meel kasta oo shuruucda inay saas noqoto oo saas isugu afgarto oo saas loo fuliyo. maxaa yeelay waxaa ku jirta dadnimadeeda soomaalinimadeeda magaceeda soo ceshisidiisii meelkii hore aan lahayn oo weynaa runtii sida kusoo noqon lahayo. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka joogno baarlamaanka goboleedka Puntland oo runtii meel aad ugu badan jawi aad ugu badan ah annagana runtii doorasho ahaan lasii xoojinaysa muxuu ahaay dhiirigelin weyn lasii siinaysa. waxay kaloo aad ugu fiican tahay maadaama waxaan ay doorasho tahay oo sharci ay tahay meeshii sharciga lagu dejinayay sharcigana lagu ilaalinayay in lagu qabto doorashadaasi. ayada waxaa waaye wax weyn oo aan la heli karin oo runtii farxad ah oo uga mahadcelinay baarlamaanka hoggaankiisa baarlamaanteedii oo dhan gaar ahaan odayaha guud ee baarlamaanka oo sida ugu badan loo shaqeeya aadaan ugu mahadcelinaynaa. waan ka sugaynaa mar kasta inay saas u hoggaamiyiisa waan ku isbeysan geynaa. maanta halkaa waxaa isugu imin doorashadii kursiga oo deegaan doorashadiisa ay Puntland ahayd oo ay qasab iyadoo meel kale lagu qaban karin ay shuruucda aan ku shaqeyn sharciga qaranka baarlamaankiisa oo aan ku shaqeynaynaa asaasa qarankaas aan markii hore soo saaray guddigii dadweynaha ee federaalka ahaa waxaa isku raacay oo wadajir u oggolaaday madashii markaas jirtay oo madaxdii dowladdii hore ahayd oo ahaay madaxweynihii prime-ministerka iyo isbaarlamaanka. Bahja Cabdullaahi Maxamed, SBS, magaalada Garowe.